عرضاdeedo أبدعي لمدننا عرضينا أذقلي عدنا ودفاعي بلان عرضاdeedo أبدعي لمدننا ciidankii wacnaayoon cabku wali la oorano ciise naga mutaysto ciidankii wacnaayoon cabku wali la oorano ciise naga mutaysto geesiyada cirkeeniyo badda looga caabo عرور بود عينو كيسي يدعر كانيو بدلو قعابو وعن عروليو عرور بود عينو عرضينا أذقلي عزنو دفاع ديو بدلان عرضاdeedo أبدعي لمدننا عرضينا أذقلي عدنا ودفاعي بدلان عرضاdeedo أبدعي لمدننا ciidankii dadkaygo calanka iyo ciidiyo loo carbiyey dalkaygo naabadeed cursi banku caana maale cimrigiina raage cadowgiina loo jabiye عرضينا أذقلي عزنو دفاع ديو بدلان عرضاdeedo أبدعي لمدننا عرضينا أذقلي عزنو دفاع ديو بدلان عرضاdeedo أبدعي لمدننا بوليسكي دالكان نهاي ذنبي بارها نهاي الجريان بول نهاي دادا الموتيا نهاي دادك كو أديكي نبدأ داديهي داب كواتكيو بوليسكي دالكان نهاي dibadda iyo gudahada hadba meesha loo diro kuwa daafacaye degdeg wa jawaabe lagu diirsadanahay guddiga dib u habaynta ciidamada
taliyaasha kala duwan ee ciidamada qalabka sida Puntland marti sharafta ciidamada booliiska iyo daraawiishta iyo ciidamada bambeyda ee kulligood maanta qalin jabinaya tababaradii muddada u socday dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa farxad aad u weyn inaan maanta inagala soo qayb galo xafladdan lagu soo gabagabaynayay tababar muddo socday oo runtii aan uga mahad celinayo macallimiintii dugsigan gacanta ku haysay iyo kuwa carmo ee soo saaray kooxdan dhallinyarada ah ee gabdhuhu hogaaminayaan oo runtii iyagana ammaan mudan oon u malaynayo dufcaddii u horreysay inay yihiin muddadii ay socotay dib u habaynta ciidamada runtii dowladda Puntland waxay iska saartay xil badan wakhtiga ugu badan ee shaqada Puntland labadii sano la soo dhaafay waxay ku wajahnayd ciidamada dib u habayntooda tayeyntooda la socodkooda xiriyo in la abuuro in dib loo habeeyo manaahijta tababarka in dib loo eego tayada ciidanka Puntland oo qiimeyn lagu sameeyo iyo in ciidamo cusub oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah ciidamada la qaato waxaan idin sheegayaa adduunka oo dhan ciidamada waxaa gala dadka jaamacadaha ka baxa jaamacaddu macnaheedu waxa weeye inaan nolosha magaalo iyo sida ummaddu u noolaato aad baratid baahida ugu weyn ee bulsho meel isugu timid ay qabto waxa waaye waa inay kala dambeynta iyo amniga ilaaliso cidda ilaalisana waa boliis iyo military iyo daraawiish iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladnimadu saldhiggeedu waa ciidan dowladdii aan ciidan ka shaqaynayn laguma tilmaami karo dowlad waxaa la odhan karaa waa qabaa'il meel wada deganoo qabaa'il meel wada deganna haddee waad garan karaysaan siday rabaan inay u noolaadaan nabadoonnada iyo isimada culayska ka saarnaa inay xalliyaan dad aysan u haysan awood ay uga gutaan waxa ay ku xadgudbaan waad garan kartaan dhibka ay leedahay haddaan nahay ummad meel degan haddaan nahay reer Puntland haddaan nahay dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inaan u dhowaanno inayn sida adduunka u nool yahaan u noolaanno oo dowladnimo ku noolaanno dadku hadduusan dowlad nahayn hadduu kala dambeyn ahayn xayawaanka waxba ka duwanaan maayo marka shaqadan aan hayno ma aha shaqo ciidamadu kaliya leeyihiin laakiin dowladoo dhan ayaa ah shaqadeeda ciidan maxaa yeelay qodobka ugu horeeya oo dowlad qofka ugu sarreeyo aniga laga rabo waxa weeye sugidda amniga marka sugidda amniga ciddii sugaysay haddaysan xirfad u lahayn dhalinyaradii xuduudda u ahaa ummaddan oo amnigeeda sugi lahaa haddii iyaga ay noqdaan kuwii amnigii khatarta ku ah waa khatar way adag tahay inaan kala dooranno habeen iyo maalin maxaa yeelay mid walba wuxuu leeyahay astaan gaar ah nolosha dawladnimo waxay u baahan tahay dhaqan ka duwan dhaqankii aan muddadii u dambeysay ku noolayn dhalinyaradii la rabay inay horumar ka shaqayso inay ammaan ka shaqayso ummaddu markay deganaan siyaasadeed iyo mid amni hesho
ayay nolol qurux badan heli kartaa waad ogtihiin dhallinyaradeenna iyo hooyooyinkeen iyo waayeelkeenna maanta waxay ku sugan yihiin mid cabsi uu meel u joogaa mid gaaju meel ugu rafaadayaa mid xanuun iyo dayac ayaa dhinac ku haysta mid kaleetana wax uu ka shaqaynayo ma garanayo oo mustaqbalkiisa ayaa mugdi ku jira si taa aan uga baxno waxaan u baahannahay nidaamka dawladnimada inaan adkayno nidaamka dawladnimada haddaan rabno inaan adkayno waa inaan kulligeen ciidan wada noqonnaa shacab iyo qofka markaa darees kastaba hadda halkan waxaa ku jira casharadiinna community policing bulshadu ruuxaddeeda waxaa la rabaa inay ciidanka noqoto maxaa yeelay ciidanka weliba booliisku macnihiisu waxa weeye in uu xumaanta bulshada ka hayo xumaanta in bulshada laga qabto dad gaara ma leh cid kasta oo aragta ayaa la rabaa inay qabato nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadihi waa kulli dadkoo dhan wey marka mid walba intuu kara ayaa la rabaa inuu qabto marka waxaan rajaynayaa ciidamada booliiska iyo ciidamada daraawiishta iyo qaybaha kale ee dawladda iyo bulshadoo dhan inaan ka wada shaqayno sidaan u noqon lahayn bulsho xasilan oo deggan oo isjecel oo horumar ka shaqaynaysa oo faraxsan dad dakana wada qaba dad colaad kala qaba dad aan isu gudbi karin gobollo aan isdhex mari karin ciidamo aan la kala bedeli karin nin walba gurigiis ka jooga dadkii wada joogana waa iswada naceen waad og tihiin ciidamadii laysku dhafay wanaagga ay keeneen shakiga waxaa keenay waxa weeye muddo badan baa dadku degaanadu sidaasay tahay ayaa puntland waxay tahay soomaaliya marka loo eego dhulalka ugu maaragtay nabadgelyada badan oo ugu quruxda badan oo ugu deggan oo noloshu ay ka jirto waxaan rajaynaynaa puntlandna inay adkaysato horumarkeeda dadka soomaaliyeed ee kaleetana waxaan u rajaynaynaa in dugsigan uu noqdo dugsiyo lagu tababaro gobollada kale markay dhammeeyaan gobollada puntland waxaan rajaynaynaa inaan gobollada kale ee wakhtiga u helin ama duruufaha adag haystaan inaan hal ku tababarno si dhibaatada iyaga haysatana looga dulqaado waxaad ogtihiin puntland waxay u dareertay doorashooyinkaas saldhigooda wuxuu ahaa markii la hubiyey ammaanka dalku inuu fiican yahay markii la hubiyey in ciidamadu ay ku filan yihiin inay ka shaqeeyaan ammaanka bulshadan qodobkii ugu dambeeyey oo la rabay dawladnimada in lagu gaaro iyo nidaamka dimuqraadiga ah oo ahaa dadku inay isdoortaan oo ay dadka ay rabaan doortaan ayaa hadda loo dareeray waxaan rajaynayaa puntland waddadii horumarkay cagta saartay dadkeeda iyo madaxdeeda iyo dhallinyaradeeda iyo ciidankeeda ayaana gaarsiiyey waxaan rajaynayaa idinkuna inaad noqotaan wixii bulshadan ay ku heshiisay oo nidaam ah oo dastuur ah oo xeerar ah idinku waxaad tihiin kuwii ilaalinayay waxaad tihiin kuwii maxkamadaynayay oo maxkamadaha u dirayay waxaad tihiin kuwii anshaxumada jirta qabanaya waxaa beryahan aad noogu soo batay shilalka gaariga waxaan farayaa dhammaan ciidamada booliiska ee kontaroolada jooga dhallinyarada in ay dalxiisaan oo meelaha quruxda badana dalka aadaan oo ay damaashaadaan waa wax wanaagsan oo aan soo dhoweynayno laakiin waxaan rabaa gaarigii kontaroolka maraya ee damaashaad u socda oo aanan dareewal mas'uul ah uusan wadin inaan loo oggolaan inuu baxo dhallinyaradu intay baabuurta aabbood ka soo qaataan ama dhallinyaro meelaha ka soo qaataan intay is wada raacaan iyagoo aanan lahayn garaadkii ama aqoontii xirfaddii dareewalnimo inay maalin walba ayna gidaarada ku dhicin qofka dadka kale ee aan badqabka qabin ee mararka qaarkood dhaqannada xunxun samaynaya ama ay dhici karto maandooriyaal inu isticmaalana waxaa la rabaa markay hubiyaan inay gaarigaas ay meeshiisa ku arraysteeyaan oo joojiyaan waxaan u baahannahay waxaan aad u rajaynayaa arrintaas waan arkaynay tababarkii ciidamada waddooyinka taliyaha booliiskana hadda wuxuu sheegay inuu koorsooyin dheeraada ay samayn doonaan
waxaase ugu muhiimsan waa wacyigelinta iyo ciidamada kontaroolada jooga inay la tacaalaan dadka gaadiidka wada iyo sifooyinka ay u socdaan oo ah inay ahayn dad aan mas-uul ahayn inay baabuurta wadaan iyo xilliyo aan munaasab ahayn iyo dad iska maaragtay damaashaadayo dadku waa damaashaadi karaan laakiin waxaa la rabaa darawalku inuu yahay nin mas-uula oo dadka damaashaadaya oo mas-uul ka noqdo laakiin hadday tahay dad iska wada cayaaraya hadda khatarta dhacaysa waad arkaysaan maalin walba dhallinyaro yaryar baa dhibaato ku soo gaaraysa marka waxaan rajaynayaa iyadana in arrintaas wax laga qaban doono waxaan u baahannahay inaan maaragtay wax ka qabanno tahriibayaasha waxaan u baahannahay inaan wax ka qabanno dadka maandooriyaha ka shaqeeya waxaan u baahannahay dadka xag jirka ah ee dalkeenna raba inay nabadgelyadiisa waxyeeleeyaan iyo dadka dalka dhaqan xumada ku soo abuuraya intaba waxaan rabnaa inaan si midaysan uga hortagno gacmihii iyo lugihii dalka lagu sugi lahaa baa tihiin waxaan aad ugu faraxsanahay runtii sida wanaagsan oo inaga muuqatay markii aad hadda dhoolatus ka samaynayseen waxaan qirayaa dufcadihii horeeto inay dufcaddan ay ka tababar fiicnayd dhinaca weliba gaardiga iyo disiblinka waxaan kaloo ku faraxsanahay dhallinyarada baambeyda ah ee gabadhu hoggaaminayso iyagana ka muuqato xirfad fiican oo istababarkii galeen waxaan inii boorinayaa dhammaanteen inaan dhammaanteen noqonno ciidan ummaddan u adeega oo ammaankiisa xasiloonidiisa ka taliya waxaan rajaynayaa horumarka aan gaarayno waxa ugu muhiimsan horumarka dhinaca amniga aan ka samayno ciidamada puntland meel kasta ay joogaan waxaan farayaa foojignaan dheeraada waxaan kula talinayaa inaan la seexan waxaad ogtihiin makriga cadowgu wuxuu u badan yahay marka ay dadkan ay dareemaan in ay horumar gaareen cadowgu waa sii kordhaa marka yeenan is oran ciidamadii baa noo tababartay waxbaan wanaag badan baan qabannay laakiin foojignaantan in la dheereeyay u baahan tahay oo indhaha la kala furo waxaan rajaynayaa ciidamada tan oo aan rajaynayo haddii ilaahayno sida halka laga sheegay xuquuqahooda inay si wanaagsan u heli doonaan tababarka ay qaateenna ay bulshadooda ugu qaban doonaan guul weyn baan ii rajaynayaa iyo horumar waxaan rajaynayaa insha allah in ay saraakiishiina iyo madaxdiinuna aad ka heli doontaan waxaad ku faraxdaan iyo abaalmarinaha aad mudan tihiin aad baa u salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi